shirka toddobaadlaha ee tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa maanta lagu qabtay xarunta wasaaradda arrimaha gudaha taa oo qayb ka ah qorshaha kulamada tubaha loogu wareejiyay xarumaha wasaaradaha si loo daadajiyo awoodda shaqaduna ay si degdeg ah ugu socoto maadaama dowladda Soomaaliya ay dejisay in sanadkan 2019 uu noqdo sanadka fulinta dhammaan himilooyinka lagu rumaynayo hiigsiga bulshada Soomaaliyeed. Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre ayaa shir gudoomiyay kulanka waxaana lagu soo bandhigay qabiyo qoraalka hanaanka dib u heshiisiinta qaranka oo faahfaahsan muhiimad gaar ah bulshadeena maadaama dalkeenu ka soo kabanayo dagaalo sokeeyo una baahan yahay heshiis bulsho wax ku ool ah si aan u rumayno nidaam dimuqraadi ah oo dunida aan kula jaan qaadi karno dadkeenuna ay aaminsan yihiin rumaynayana gaarista soo kabasho degdeg ah oo dhan walba ah isdhexgal bulsho damaanad qaadaya isu socod is-aaminaad iyo is-ixtiraam. wasiirka arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisiinta injineer Cabdi Maxamed Sabriye oo warbaahinta qaranka la hadlay shirka kadib ayaa sharaxaad ka bixiyay hadafyada iyo qorshayaasha waaweyn ee tubta siyaasadda loo dhan yahay hor yaala sanadkan 2019 arrinkan ah in maanta wasaaradda arrimaha gudaha markii koowaad lagu qabto shirka tubta siyaasadda loo dhan yahay waa arrin ra'iisul wasaaruhu keena runtii aad u fiicnaa annaguna waxaan si gaar ah ugu faraxsanahay in annagana laga bilaabayo wasaaradda arrimaha gudaha laga bilaabay waxaa guud ahaan sida ay hadda tubtu ku socoto lagu talagalay sanadkan 2019 inuu noqdo sanadkii waxqabadka sanadkii hore waxaa sanadkii qorshaha sanadkan waxaan u gudubnay qorshihii iyo dhammaystirkiisii iyo waxqabadkiisii maanta waxyaabaha looga hadlay shirka waxaa uun ka mid ahaa 3 qodob oo muhiim ay ahaayeen waxaa ugu horreeyaan isleeyahay uguna muhiimsanaa arrinka hanaanka dib u heshiisiinta qaranka oo 2 qaybood oo uu ahaa qaybi soo dhammaatay qaybtii qorshaha haddana la rabo in loo gudbo hirgelinteedii 3 bilood oo sanadka ugu horeysa oo ku eg 31 March ayaa la rabaa hawshaas inay soo dhammaato waxaana galabta si qurux badan ay wasaaraddu u soo bandhigtay 5 tiir oo loogu talagalay waxqabadka wasaaradda ee ku aadan hanaanka dib u heshiisiinta qaran arrimaha kale looga hadlay waxaa ka mid ahaa shirkii iskaashiga Soomaaliya iyo Kenya oo dhawaan ka dhacay Nairobi uuna ku jiray safar lagu tagay xuduudka oo wasiirada arrimaha dibadda Soomaaliya iyo Kenya oo wada socda ay magaalada Mandheera ku tageen waxaa sidoo kale laga hadlay sidii hore loogu wadi lahaa qorshayaasha iyo barnaamijyada tubta oo ayadana guddiga farsamada oo arrimahan ka shaqeeya ay soo jeediyeen. himilooyinka tubta siyaasadda loo dhan yahay ayaa ah kamira dhalinta geedi socodka damaanad qaadaya in dalkeenu uu gaaro doorasho ay muwaadiniintu si siman uga qayb qaataan go'aanka gaarista mas'uuliyiinta dalka hogaamin doona qaangaarsiinta nidaamka federaalka ee uu dalkeenu ku dhisan yahay dhamaystirka nidaamka dib u heshiisiinta qaranka dhamaystirka dib u eegista dastuurka diyaarinta hanaanka iyo qorshaha doorashooyinka xoojinta xiriirka caalamiga ah iyo iskaashi danta Soomaaliya ku jirto oo aan dunida la yeelanayno. Nasr Bashiir Cali warbaahinta qaranka Muqdisho.